Ilaali xuquuqda xaaskaaga. Gabadha aad doonaysid inaad guursatid waxay kaa doonaysaa laba shay oo aad u qiimo badan waxayna kala yihiin. Kow, awooddaada ama ragnimadaada, waayo gabadha waxay kaa rabtaa ilaalin iyo xifdin, maadaama ay ammaano kugu tahay oo ay qoys dhan kugu soo ammaanaysteen. Ogow haddii agtaada wax ku soo gaaraan ama aad dayacdid ammaanada lagu dhibtay, ma ilaalin xuquuqdeeda. Labo, ismoodsiin ayay kaa rabtaa, waayo mararka qaar waxaa laga yaabaa hadal ku dhibayo inay kugula hadasho, ama wax aad rabtay inaan lagu samaynin, ama wax sida aad u rabtay loo samaynin. Marka, waa in aad tahay qof ismoodsiin kara waxyaabaha yaryarka ah, balse haddaad isdul taagtid wax walba lagugu sameeyey, ogow naceeb ayaa imaanayo, hadduu naceeb imaadana reer kuma sii jirayo. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dumarka waxaa laga abuuray feer qaloocan. Haddaad rabtid inaad ku raaxaysatid, ku raaxayso iyadoo qaloocan, balse haddaad dhahdid waan toosinayaa, waad jebinaysaa, jebitaankeedana waa furiinka.